halkay kala marayaan arsenal waa joogtaa waa salaamantiin waa maxamed faarax kahor intaan u gudagelin akhbaartaas waxaan rabaa in dad badan oo soomaaliya oo activistiya oo dhalinyaro ah oo isxilqaamay dadkoodiina u istaagay inaan u mahad celinno waxaa ka mid a maahir fatxi shukri iimaan shaakir qaan injineer maxamed faarax kawsar iyo dad kale oo mar walba macluumaad raadiyo akhbaar raadiyo ais dabagalo dadka darbika boodka ah caawiyo lacag u aruuriyo dadkan xil ma hayaan laakiin waa activist keliya marka haddaan una reer colombus waxay naga mudan yihiin inaan dhahno mahadsanidiin reer colombus dadkaasna isha ha lagu hayo aan u gudagalo su-aalo badan laysoo weydiiyey dad badanoo waxaa jiro visa ku yimid maraykan oo green carkii xareeyey green carkii weli muu soo dhicin dadka ku yimid I-130ga ama aabba keenay ama xaas keentay marka dadkaas way cabsanayaan ayaa layidhi qaarkood shaqo way aadi waayeen maadaama green carka uu soo dhicin gurigay joogaan green carkana waa la baarayaa dadka hadday soomaaliya ka yimaadeen maya shaqadaada aad cabsanin waddanka sharci ayaad ku timid waraaqdii aad green car ku buuxisay oo rasiid numberka ahayd qaado viisihii maraykanka iyo baasaboorkaagana qaado baasaboorkaaga qalaad ama soomaaliya ka yimaado ama kenya ka yimaado ama etoobiya ka yimaado ama sweden ka yimaado may meeshaa ka yimaadaba shaqadaadana aad waddanka sharcigaa ku joogtaa ice sharcigaas hadday ku istaajiso ha cabsanin intaas ayaan leeyahay sidoo kale maalmahan mudaharaad nabada ayaa ka socda columbus oo looga soo horjeedo ice operationka ka wado columbus ohio maantoo galabtuu dhacay xalay mid dhacayaan ka qayb gala aniga hotel embassy ku yaalo sharoog aageeda oo markii dambe ice ka guureen dad badan ay ku mudaharaadeen waxaa ifajac geliyay dadkii mudaharaadayey waxay u badnaayeen caddaan iyo dadka latinoga calaamadooday wateen mexican honduras guatemala soomaali waxaa joogtay ilaa 10 gabdhana u badan marka dadka soomaalida oo citizenka waxaan arkay cabsanayo oo u maleeya ice wax weyn ice maya canshuurtaad bixisaa lagu biilaa ice canshuurta lagaa qaada lagu biilaa maraykan baa tahay xaq ayaad leedahay ice waxaa dhigi kartaa magaalada inooga baxa dadka communitygeena ha dhibina neighborkeena ha dhibina way cabsanayaan dadkeena jaaliyaddeena ha dhibina faraha naga qaada si nabada waad ugu mudaharaadi kartaa adiga oo aan dagaalamin markay mudaharaadyaasha socdaa laga dayb qaadato hadda idinla hadlaya caawa saacaddan waa 11:30 p.m. mudaharaad ayaa wuxuu ka socdaa polaris hotel ku yaala lasoo ogaaday xalay markii aan ku mudaharnaadnay ilaa 1 waa guureen waa carreen hadda hotelkooda lasoo helay waa lagu mudaharaadoyaa maahir iyo faadumina oo ayadana activist ah oo xalna mudaharaadaysay ayaa joogaan ha laga qayb qaato mudaharaadkaas oo hadda mudaharaadkaas waa socdaa sidoo kale waxaa jiro xaflad laisku wareysanayo communityga isku wareysanayo qabanqaabiyeen injineer maxamed faarax iyo kawsar muuse december 23 2025 2 p.m. saacadda markay tahay adresku waa 2210 morris road columbus ohio 43224 waxaa loo baahan dadka citizenka ah community activistiga ah siyaasiyiinta soomaalida madaxa madalsho inay isku imaadaan bal dadkii sidii jaaliyadda loo difaaci lahaa dadka soogalotiga loo difaaci lahaa in laga wada hadlo marka xafladdaas imaada midda kale badan ayaa ice ka cabsanayo oo adreeskoodii dad family intay ku qorteen guriga dadkii dhalinyaradii darbika boodka guriga aag badasheen ama mar hore ka guureen marka ice adrees ka imaanaysaa marka dadkii ayaa cabsanaya dhowr qofna waa isoo waceen shalay gabar ay soo wacday maanta wiilaan saaxiibanahaa ii yimid uu yidhi aniga xaaskayga 3 bir lasoo dhaafay ice ayaa nagu daba jirta waan raacis xaaskaygana waa cabsatay oo mar walba adeeg aado ama ciyaalka iskuulka soo qaado oo lagu daba jiraa marka ice ayay ka cabsanaysay ugu dambeyn shalay nagu soo qaraaceen guriguu yidhi 6 a.m. markay ahayd aniga marka wuxuu yidhi waxaan ku yidhi warniyo waana daba dhigateen ice maxaa naga rabtiin waxaan ku dhihin hebel ma joogaa hebelkan wuxuu yidhi marro adreeskii ka guuray waxaa yidhi ninkaas waa iga guuray meeluu jirana hadda ma aqaano mar dambe gurigayga ha imaanina marka ice runta u sheeg hadduu dadkii kugu qornaa guriga kaa guuray ha cabsanin maxaa u cabsanee
qof citizenaa tahay waddani maraykanaa tahay qofka ice kugu qaraacaya asina waddani maraykana waay war gurigeyga mar dambe ha qaraacin haddii kalena wanaan kugu yeerayaa ama judicial warrant ma haysataa lerar oo judge saxiixay hebelna ma joogee mar dambe guriga ka tagdhe hadduu qofkii guriga joogin haddii kale guriga ha ka furin hadduu qofka joogo ha ka furin dhalinyarada darbi kabuudka waxaan leeyahay ice bannaankay maraayaan meel walbay maraayaan meel walbayna joogaan ha lays ilaaliyo maanta keliya columbus ilaa 15 meel aan ku arkay aabka iceout.org haddaa geshid activityga columbus ka sameynayaan waad arkaysaa westiga xaafadaha westiga u badnaayeen maanta dad ay xireen ma maqlin report saxana ma hayo kuteen waxaan ka ahayn waxaa la leeyahay 3 qof mar dadkii ma hayo mar dadkii aan raadiyey maanta dhan dad baa wacayay tiro rasmi ah ee maanta xireen ma jiro laakiin waxaa xaqiiqa in dadki dhalinyaradii reer columbus ee darbi kabuudka ahaa kala gooyeen sidaasna waa si fiican kala gooya waxaa waaye is ilaaliyana ilaa intay duufaantan ice naga dhammaanayso naga tegayaan magaalo kale u haajirayaan inaa is ilaalisana fiican website-ka haddaa geshid ice ee columbus activity-gooda waxaad ku arkaysaa 10 qof maalmihii la soo dhaaf inay xireen hal qofaa soomaali ka cabdirasaaq wiilkay dhahaan dadka criminalka waa ay soo geliyeen laakiin tirada waa ka badan tahay dadka criminalka ah bas ayay ku faanayaan waxay leeyihin the worst of the worst ayaan xirnay wiilka soomaaliga ah dembi ayuu galay greencar holler u ahaa waddankaasoo yaruu soo galay waa wiilkii maalintii koowaad ba arbacada ay qabteen aan sheegayey kabacdi nin fiican u noqday waxaa waa nin shaqaynayo haddana koota baska dowladdu buu shaqaynaya baska dowladdu ka shaqaynaya mechanic ahaa laakiin dee backgroundkiisa fiiriyeen yaraantiisii dembi u galay ayaa loo xiraa dartaan hadduu 43 laakiin mar hore ayuu dembigan kala soo yargalay icena janis ku weeshay adoo yaraa dembi gashay waa ku xiraysaa marka websitekaas 10 qof ku jirto dadka kale ee soo galootiga dembiga gelin ice ma report garaynayso waa aamusan tahay laakiin dadkan dembiga galay oo guatemala mexico india ka soo jeeda bas ayay sheegeen gunaanadkii waxaa loo baahan yahay dadka madaxda activistiga waddaniga ah inay mudaharaadyaasha nabadda dhacaya ka qayb qaataan oo maalmahana socdo marka fadlan ha cabsanina mudaharaadyaasha socdo sida kan caawa socdoo kale biyo soo gad cunto soo gad calanka soomaaliya keen calanka mexico dadaa wato guatemala dadaa wato honduras dadaa wato si nabada ice ha looga mudaharaado ilaa intay magaalada ka baxayso hal lays ogaado dhallinyaradii darbarkaboodka waxaan ku soo afmeerayaa shukri iimaan iyo maahir waxay wadaan lacag aruurin qof walboo reer columbusa fadlan saraaga moll room 84 waa meesha dadka cuntada loogu geenayo cunto soo gad meeshaas gee lacag soo qaad meeshaas dhig dhalinyaro badanaa darbiga ku xaraysan oo aan shaqaysanin oo ice ka cabsanayo cuntay u baahan yihiin raashiinay u baahan yihiin fadlan aan garab istaagno shukri iimaan iyo maahir oo barnaamij fiican wado saraaga moll room 84 qof walba waxaa awoodid oo lacaga ama inta raashiin soo gadid gee si dadka walaalaha ah ee guryaha ku jiro loogu quudiyo maxamed faarax fiidiyogan la wadaag dhammaan asxaabtaada eheladaada qaraabadaada sharta icena iyo sharta trump allaha ummaddeena ka xijaabo aamiin aamiin